qodobo yar oo ku saabsan arrin iyaduna aad looga hadlayo oo ku saabsan xuduudka especially Soomaalidu ay very interested ugu yihiin kana taagan hadda Mandheero oo kale laga hadlayay arrinta iyada dawladda Kenya wada marka hore borderku waa federal issue waa arrin xukuumadda federaalka levelkeeda ku waxaysan dawladda Soomaaliya iyo Kenya way ka wada hadleen iyadoo in media midna tagina waxaan ku baaqnay islaana qaadanay guddi isku dhafa oo dawladda Soomaaliya ونحن كمد نحن إيه دولة كينيا إنها تجان أو ماشي أو حكي لنا يضع صحافة يقيلة منها ينتين أنت اللي يسوتها ماشي الله فيريو أو مركا وحي شري خلال اللي يسويجين وعن هالكلام الجالسين إلا جالسيو صح معها وعنداسي ما أنت كينيا وحنا يوم ضنتها إن أنا وما سنتين ما أنت نيروبي شفت الصومالية عن قرنا إن هالمر على أنت لا أقول اللي دار كينيا يا صوماليا والجزائر ما نسله مركا وحي نقول كوساف صوماليا dhulka Soomaaliya si degan baa looga hadlay Kenya waa laga wada hadlay maanta Soomaalidu uma baahneen inay meel badan iskaga shido inay tira xagashan la gubaya in masaalixda Soomaaliyeed oo dhan la lumiyay shay sax ma xubna ka tirsan dawladda federaalka ah ayaa ku soo biiray dad badan oo horey u sheegayay in Kenya ay dhulbab wado in la iska dhiciyana ay mudan tahay waxaana qaar ka mid ah baarlamaanka ay ku taliyeen in hubka loo qaato sidii Kenya la isaga daafici lahaa dhanka kale Axmed Madoobe waxa uu difaacay ciidamada Kenya ee jooga magaalada Kismaayo kuwaas oo waxa loogu yeeray qaramada Midoobay ay ku eedeysay in dhuxul iyo sokor ay ka dhoofiyaan dekada magaalada Kismaayo halkaasna qarash fara badan uu ka soo galo Axmed Madoobe oo u hadlayay sidii askari Kenyaan ah ayaa sheegay in askarta Kenya ee Kismaayo joogta ay yihiin kuwa ugu akhlaaqda fiican ciidamada shisheeye ee Soomaaliya jooga arinta ku saabsan report soo baxay oo ka hadlayay waxyaalo lagu eedeeyay ciidamada KDF oo ku saabsanayd ganacsi sharci darro ah oo ay ku sameeyeen sonkorta iyo dhuxusha riboodkii ugu dambeeyay black and white taasoo macnaheedu uu ahaa arrin aan isleeyahay waxay ahayd xadgudub ka dhan ah la dagaalanka argagixisada xadgudubna ku ah ciidamadii ama ahaadeen AMISOM Kenya ama ahaadeen ciidankii Soomaalida ahaa ee ka dagaalamayay وارين هذا خلدنا الدباتة هذا إسكال وارين كواف لجادو يحدجدب هالنقطة عيدا ككينيا هالنقطة الصومالية مركان كان لي عيدا كKDF أما كينيان كيتشوجي وحنسلاقي وعيدا ماذا صومالية تشوجي AMISOM تا عيدا ماذا ودش بلين في عام بكمية أريد النحوش كوسابسن وحنا مالين وحاد شري أنا غلطين أما تشوتين ترمين بيقولها ما نكون وارين تاجو تشوتي تاسان أنا ولا ما ملهان وقاضي عيد ولا بنعين وحينيس ما jiraan cid ka ganacsata Axmed Madoobe ayaa nin laba kaarla ah oo ku daawan dawladaha Kenya iyo Ethiopia labadoodaba danahooda ka shaqeeya